أصحابي واركنا مخايلي يشويقي قدري عاوي وصو عرفني مقاحي halkoo waa qaadanay dash dhulka sabiixa jibisay hooyadna wax tirwa cararayna anigana waa soo carar waxa ma xalin meesha waa xalin lahaa dadku tigla dhila naga raalaada soo cararna lacagta fiicna Soomaali macalin u yaqaan abti soo baxna hawshan way noo soo dhamaatay waana kana saareer u nahay insha Allah mar dhow xaafada aadayna laakiin intaan xaafada aadin ka hor waxa sameeynaa xogaa yara qaacida kaga siinayna hadii Ilaahay idmo ka hor aniga iyo laba dhalinyaro saaxiibaday ah waxa joognay magaaladeeni marka 8 saac 9 saac binimo meelahaas ahayd adiga 8 saac 9 saac binimo waa 2 saac ilaa 3 saac binimo xilli dambe ahayd waa iska sheekaysanayeen dhalinyaro iska ahayd magaaladeena xogaa amni way iska ahayd marka annagoo iska sheekaysanayna waxaan fadhinay meel guri irid banaan ah banaanka qolka xakabadiisa adiga meesha ma aragtay irid banaanka qolka iridiisa xakabadiisa fadhinay marka saa iskaga sheekaysanayna 8 saac binimo indama socoto aniga iyo labada dhalinyarada ahayd filin iyo adiga howlo iyo maalintaas kubad iyo wax kasta laga sheekaysanaya ma ogta dhalinyaro la iska ahaa kadib waxa dhacday annagu meeshaan iska fadhinaa baa gabar dhalinyaro ah oo dirac kaliya qabta timahana u furan yihiin dabayl iyo dhaxan iyo wax kasta dhacaya timahana u furan yihiin dirac kalina wadata cagacad horteena soo martay horteena ayadoo wiliba dheeraynaysa isaanoo kale wada aheede wadadaas kale ugu soo dhacday annaga markuu asfiirinay wana gabar dhalinyaro ah ma ahayn qof weyn ma ahayn oo qof weyn haduu yaa isweydiin lahayn ma ogtaa maxaa ku dhacay markaasa waxa dhacday aniga labada dhalinyarada waxa isnaanay saas isku fiirinay intee meesha maraysi maana hadlin saasoo kale markii adiga si dheeraatay wax dhaanay ma garanaysa he sheekadana iska sii wadanay maxaa ka khaldanay waxa ismaana weydiin xoogaha kadib ma waxa nagu soo baxday maamo gabadhi daba socota laakiin maamada aan naqaana annaga maamadii wax dhahday saasoo kale aan isoo fiirso waxay ku tiruriya anas miinkiiba war gabar ma aragteen waxa ku gabar baa hadda halka maraysa amal teen gabadh waxna hadda tan halkaan maraysa waa xilli dambe habeenimo mugdi meesha naga dambayso waa madow qorax iftiin wax jira ma lahan dayaxa dheer kadib markuu waxa dhahday waxa ku dhaana halkaan martay maxaa ku dhacaan marka gabadha maxaa ka khaldanaa soo dhahday gabadhi jinni baa ku dhacayo weyn dishayo albaabka dhan nagu soo xirtay hebel waxba ku dhuftay cunuga dhashaan naqaanay hebel halkaas ku dhuftay naga soo carartaaday gabadha wiilkeeda qabo wiilkeeda qabay waxa dhahday kaalay markii soo qabtay niman kale ma jiraan marka maamada way oynaysaa way ma aragtay qof caadi waxna weydiinaya ma ahayn ayada dhan way bedelantaa aniga labada wiil wana wada taqaanaa ma ogtaa waa soo baxnay gabadhi meesha ka soo baxdaa soo daba galna waxa raadinay adiga waxa jira god weyn oo magaciisa loo yaqaan god qolka marka god qolkii bay gashaa waa geedo iyo god weyn oo adiga ma aragtay bahal iyo bilaaya ku nool godkii baa galna ka daba galna ilaa wadada godka ku dhamaanaysa ma ogtaa god weyn marka biyaha xitaa gali jiro oo lagu dabaalan jiray roobka markuu doo marka godkii baa ka daba galna sharqanteeda maqlaynaa laakiin ayadu ma jeedno marka sa u raadinayna baa markii dambe anuu iska taagan baa waxaa maqlaa dhagax murf inta soo yir dhabarkayga dhaxay dhagax weyn dhabarkayga dhufatay aniga meel leeyahay jir inta garin way awal ma baqeen marka waa dumar baa isleen ma ogtaa saddex wiilna waa ahayd gadaashiida fiiriyay dhagax markuu ugu dhacay waxa xitaa wiil ma sii baqin saas inta u istaagtay ma aragtay saamiyo baa waxay tiri deeq aniga markaas xabsado waa ka soo carara jinnigii caadiga ah inuu wax u dhuftaa moodo gabadhii markay qosashay hadana waa weyna meel ka baxday hadana waa raadin waa soo qabanaa adiga si kasta inta yeelnay saddex nin baa ahayn dhalinyaro ayadana gabar yar ahayd gabadhaas labadeeda gacmood isku keen weyna dirceeda adiga dhar badan ma soo wadan ma ogtahay wiilkii qabay iyo walaalaheed iyo wixii iyo lama joogan laba maamadii iyo gabadhii saddexdeena kaliyaana iyo dhul inta galnay habeenkaas igu darneeday qofta xoog badnayda waa isku keen weyna adiga cala ay taxaal markii dambe waa isku keenay xabadka dhulka u dhignay waa qabanay ayada marka wax kale ma ahana waxay rabtaa in iska socoto baadiyahaas gasho baadiyaha gashan waligeed lama arkayo marka maamadii anaga nagu ooynayso waa soo qabanay dhulka dhignay adiga markii dambe labada wiil mid kamid ah ee qabsatay far ee si fiican ugu qaniintay kal ilaab way ku suuxday marka waa ka fajinay feeri waxba la dhacnay aniga dhagax ay ugu dhufatay wiilka farta ka qaniintay maamadii ayada mar hore u soo dishay kuwa kale guriga ku xirnaayeen qoftii waa soo kaxaynaaday
jidka markaa maraynay haddana naga dhacday ilaa awal mana la jiidi karo ma ogta dhagaxoon iyo qodaxa iyo waxba dhulka yaal ee naga dhacday oo naga farbaxsata haddana ma waxaan ceersan baa meeshii nagu celis haddana waa soo qabanay habeenkaas adiga markaas xilli dambe aheed qoraxda nagu soo bixi rabtay gabadhaas qoraxda wax yar ka dhineed inay soo baxdo markaan gurigeeda ku soo laabanay intaas kal iyo laab inoo wareejinaysay aniga dhagaxa igu maqnaa dadka dhan way baabi'isay hadda ka hor ay ku dhacday barnaamijkaas sheeko soo xasuustay asxaab waxa dhacday hadda ka hor baa waxa dhacday waxbarashadan ka dhaartay adiga saa waxa la isdhaa qoftan waxba ka khaldan waxbarashadiido wata waxaa la gabadhan san kuma fiyo waxbarashada way ku fiicneed kaalimay ka gali jirtay shaxshax way ahayd markaaga hore fiicneed markayga hore laakiin markii dambe dhacday markii ma dhicine waxaan ku nacaa soo arkay aniga markii dambe waxbarashada ka dhacday ka wada isku ka dhacday ka wada adeerta waa dhacday waxaan ku nacaa soo arkay iskama dhicin waxaa dhacday wadaad dadka quraanka saaro caanku afaaraas in la digaalo oo macallin cabdi la dhaho magaalada caanka ahaa baa la isoo qabta waa la isoo kaxiyaaday ma cabdi rabo in lagu geeyo waa la ii geeyay waxbarasho kaliya diiday cunadina waa diiday waxbarashadina waa diiday afaara kale ay hayst afaara khaas qofka soo mahaysan karaan afaara khaas qofka soo mahaysan karaan Soomaaliya qofka xogaa yar inta ku siiyay waxa la igu weeliyay asaa xul weydiinay afaara khaas ay haystay jaf baa la yiri macallinkii baa la ii geeyay marka tookadayda markii la gaaray buu barta ay qabtay barta wax ka xanuun badan qashtanka farsa u qalocona wuxuu haystaa oo halka kaliya dadka gacan jarofto dhabbu si ilma waxay ka tiraa tararar ma waxaan isfuran baa waa baxaya xagee ka baxaysa jinni is qabina sheegata inta la igu dhagay wax ka xanuun badan waliga ma arkin bisbaas una dadka u soo jiray iyo bisbaas iyo labadaas kale igu shubina bartaas sanka halkiisa cajowda halka buu qanjirufo iyo qofta kaliya laaba saatra baxaya xagee ka baxaysa marka ceebta waxay ka dhacday xagee ka baxaysa uunay saar midigta laga bax bidix laga baxaa gacanta bidix فريرة بيض بين ما شيء زي ولا ما بحيس ولا يقصي هيا باش مدي قداش ما بحيس لا مركز ما كنت بعده بدي لي انقب حي واه بدي لي انقب كلها أصحاب waxaan sameeyay marka waxaan kala sameeyay garan way bidixyo fakka meeshan waa ka soo kacay islaayada la ka baxday bidixdi sheekada ku soo xasuustay sheekada jinka ku soo xasuustay maanta waxaan ku yiri waxaan rajaynaa fiidiyowga inaan ka heshaan gabdhaha laakiin sayn fiiri ninkaas laba gabdhood la socdo ooyiisa u duceysay gabar kale maxaa kale way ku soo habartay kulaha kaale asxaabi waana kana waxaa ku iraaday filimkeena inaad ka soo gabagabeynaa rabnaa insha Allah mar dhow gurigeena iska galeynaa asxaabta 100% aad ugu mahadsantihiin 20,000 oo subscribe insha Allah adigana hadaa nagu cusub nagu soo biir channelka subscribe saar oo ogtaa oo soo dhaweynayna waa iska Soomaali Royal Family waaniga Anas Cabdi iyo Cabdi Boolo aad iyo aad aan u mahadsantihiin waana kana rahmatullahi wa barakatuh no musku daraysa labada darbaxada ku go'an bye bye